السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي أدنى سلامية داودي المركز ستوتان هدي هبين إذن تهي هبين ونكسن هدي مال إذن تهي مال ونكسن وقت كستو إذن تهي وعنه ونكسن أنا دلياي أنت كدب هدي الشانل كورسب تهي مقعي جود دايرود عبد الرحمن ما أنتم حربين إذن لو داقو موضوع كم إذا موضوع إذا عن شانل كنا إذن كسوق بيو كسوء هرتنا هانتي أنتي أقوى أكتهي أخيرت شانل كحرن أنتي أنا وجينا hadda ha ogaato channelkeena horta waxaan kaga hadalnaa waxyaalo badan ayaan kusoo gudbinaa oo kala duwan mar waxaan kaga hadalnaa sirta nolosha oo dhinacyo badan aan kaga hadalno mar waxaan idinku soo gudbiyaa casharada Englishka ee waliba American Englishka ah sidoo kalena channelka waxaan idinku soo gudbiyaa talooyin arday kasta anfacaya qudheeda arday aan ahay waan dareemayaa baahi kasta oo arday u baahan yahay marka barnaamijyada aan channelka idinku soo gudbiyo waxa kamid ah talooyin oo arday kasta muhiim ah oo talooyin kala duwan dhinacyo kala duwan taabanaya sidoo kalena waxaan ku soo gudbiyaa channelka barashada editingka sida Photoshopka waxaan kaloo idinku soo gudbiyaa channelka xogo ku saabsan jacaylka oo dhab ah oo waaqici ah sidoo kale channelka waxaan ku soo gudbiyaa barnaamijyo ku saabsan nolosha saaxiibtinimada runtii waa mid aad balaaran dhinacyo badan baan kaga hadlay xataa laana wayna socotaa maantadan barnaamijkan idin wadana ayaa ku saabsan saaxiibtinimada iyo xaqiiqooyinka ku sugan marka fiidiyodaas oo waxaan idin soo dhigayaa qaybta hoose description-ka haddaba aynu iska bilaabano mawduuceena maanta horta intaan idin la wadaagin mawduuceena maanta in yar ayaan rabaa inaan idin bayaaniyo kelmadda saaxiib waxa ay tahay kelmadda saaxiib luqadda Englishka sida aynu wada naqaano waxa lagu yiraahdaa friend hadaba kelmadda friend oo ah saaxiib haddii aynu xaraf u kala qaadno xaraf walba macnaha u taagan yahay aan idin la wadaago xarafka ugu horeeya ee f waxay u taagan tahay fight for you uu ku dagaalamaya saaxiibka uu ku dagaalamaya xarafka labaad r waxay u taagan tahay respect for you uu ku ixtiraamaya xarafka ku xiga i waxay u taagan tahay include you uu ka tirsan yahay saaxiibka xarafka ku xiga e waxay u taagan tahay encourage you oo macnaheedu tahay ku dhiirigelinaya saaxiibka ya salaam ha wadada waa wax dhaca saaxiibkaaga wanaagsan waa kii ku dhiirigeliya saaxiibkaaga wanaagsan inuu ku dhiirigeliyo uu ku yiraahdo saaxiib hore soco waxa soo wax fiican oo mustaqbalkaaga ku toosmaya hakanidi jabin barnaamij diibin hore soco inuu ku yiraahdo waa dhacda laakiin saaxiibka xun dhinac xun buu mar walba kaga sheekeynaya xaraf ku xiga n waxay u taagan tahay need you oo macnaheedu tahay uu ku baahan yahay saaxiibka uu ku baahan yahay xarafka ku xiga d waxay u taagan tahay deserve you oo macnaheedu tahay uu ku qalmaa isku qalantaan xarafka ku xiga s waxay u taagan tahay stand by you oo macnaheedu tahay uu garab taagan yahay saaxiibka uu garab taagan yahay marka intaas hordhac hayno ahaato ku saabsanaa macnaha friend daba aynu gudagalno mawduuceena maanta ee ah saaxiibtinimada iyo xaqiiqooyinka ku sugan saaxiibada dhabta ah waa sida xidigaha oo kale badanaa ma aragtid iyaga laakiin waxaad ogtahay in ay weli wehelkaaga yihiin saaxiibada khiyaaliga ah waa sida harka oo kale way ku soo raacayaan markaad iftiinka ku jirtid wayna kaa harayaan markaad mugdiga gashid marmarka qaar inaad kafee la soo cabtid ama shaah la cabtid saaxiibadaada waxay ku noqotaa daawo iyo jawi degan oo aad u baahnayd saaxiibka dhabta ah waa midka aan kugu xukumayn waxa aad tahay saaxiibadaada dhabta ah iyagoo og inaad tahay qof walan yacni qof nooc kale ah ayay haddana jecel yihiin inaad ka dhex muuqato bulshada saaxiibka dhabta ah waa qofka kugu aqbala wax kasta oo aad tahay laakiin sidoo kalena kugu caawiya inaad noqotid qofka aad rabtid iska jooji daacadnimada aad ka filanaysid kuwa adiga aan daacadnimo ku muujinayn
saaxiibkaaga dhabta ah aamusnaantiisa oo si caadi ah uusan u aamusnayn waxay ka dhaawac badan tahay oo ay ka dareen badan tahay cadow oraah xun uu ku yidhaahdo. saaxiibtinimada dhabta ah uma baahna maalin ay u dabaaldegaan saaxiibtinimadooda, sababtoo ah waxaynu u dabaaldegnaa saaxiibtinimadeena inagoo isla kaftannaa, inagoo isdacaydeenna mid kale. xaggayga dambe ha soo soconin, laga yaabaa inaan ku hogaaminayn. horteedana ha soconin, laga yaabaa inaan ku soo raacayn. keliya igarab soco, noqona saaxiibkay. saaxiibtinimada ma aha inaad qofkan waqti dheer aad istaqaanaan, ee waa qofka adiga ku yimaada ee aan kelinimo kaaga tegayn maraad u baahan tahay oo hel qofeed. saaxiibtinimada ma aha wax aad iskuulka ka baranaysid. haddii aadan aqoon micnaha saaxiibtinimada ay leedahay, xaqiiqdii waxba maad baran. waxaanu helnaa uniform cusub, waxaynu helnaa shandad ama boorso cusub, laakiin weli saaxiibadeena waa saaxiibadeeni uun. inaad saaxiib labaad heshid waa adigoo hela naf labaad. saaxiibkaaga wanaagsan ee dhabta ah wuxuu kaaga qalmaa inaad ku tidhaahdid sidan: waad ku mahadsan tahay saaxiib qaali, ka qoslisiinta aad iga qoslisiin jirtay. waad ku mahadsan tahay saaxiib inaad iga dhowrcadaysiin jirtay. waadna ku mahadsan tahay saaxiib qaali inaad hore ii riixdid. sidoo kalena waad ku mahadsan tahay saaxiib qaali inaadan ila jeclayn inaan dhaco oo aan guuldaraysto. allah ka soke mahaddaasoo idil adigaa saaxiib iga mutayste. intaas ayuu inoogu egyahay barnaamijkeena maanta. marka fadlan haddii aadan hore subscribe u saarin, fadlan saar subscribe, gambararka yarna riix si aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada barnaamijyadeena xiisaha leh aan soo geliyo. oo nagu soo biir ka mid noqo aqoon-yahanada iyo dadka positive-ka ee channelkeena ku jira. intaa kadib fadlan wixii su-aal ah aad haysaan iyo wixii talo ah, afkaar ah aad haysaan, xagga hoose ee commentiga igu reeba. haddii aad wax ka faa'iiday fiidiyogeena maanta, fadlan xagga hoose ee commentiga nagula wadaag. sidoo kale haddii aad jeceshin inaan soo badiyo fiidiyada noocan oo kale ah ee ka hadlaya nolosha saaxiibtinimada, fadlan xagga hoose ee commentiga inoogu reeb. intaa kadib waanigoo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Till I get up, time is barely on our side.